joogay Kampala waxaan la deganaa hablo waxaan la sheekaysan jiray markaa odayga markaa shakligiisa jismigiisa wejigiisa imuu qancin ee jahanna aad buu iga weynaa odaygu markaa maadaama uu xaaji lacag ahaa keliya taa waxaan u eexaystaa inaan la sheekaysto oon waqtiga u siiyaa xagga jeebka xagga lacagta imanka besh markastaan kulano wuxuu ii dhiibi jiray xoogaa yaro kuush yaroo lacag haddii ay sidaa ahayd ayaa waxaa jirtay markaa intaanan Kampala iman wadankii inaan isagu markaa dooni jiray inuu ila sheekaysto oo inta badan isaguu daba socon jiray oo aanu ahayn dad isku dhow goor galab ah oo ay galabtiiba dhammaatay maghrib ay tahay maqaariibta xilliga la yiraahdo ayaa waxa ay soo galay taleefankii baan qabtay taleefankii markaan qabtay waa inan aad cod macaan haddii aan inankii ka qabto salaamu calaykum salaam heblaayo hebel soo maaha haa walaal wayadii waxaad ii sheegtaa walaal adreska degantihiin gurigiina iyo lambarkiina markaas waxaan ku uri bildinka noocaasi lambarkaale baan deganahay ma qof anaad qof markii uu sheegtay aada weyn xagga codkiisa markaan maqlayba waaba la jiitay codko keliya ta lagugu jiitayba codko keliya la igu jiitay bildankii iyo lambarkii baan u sheegay wuxuu igu yidhi hadiyad baan kuu siday waxaad samaysaa tankiyo shan badan waxaad samaysaa bildanka haddaad bildinkaa degan tahay bildinka lambarkaad sheegaysid soo istaag balakoonka soo istaag maqaaxida ka hooseysaan joogaa taleefankaan oo sidii dhegta ugu haya ayaan balakoonkii ama berendihii guriga istaag waa inaan dhalinyaro ah oo qurux badan horta intaad halkay gaarsiin dadkaa rabaa inaan mid weydiiyo hablow qof markaa kugu horeyso meesha joogta ma u tilmaami laydeen ama nambarkaaga ma siin laydeenba qof markaasun kugu horeyso kula hadlayba anigu waaba shakiilaaba shakiga ugu weyn iyaa soo diraan solanaaba iga cilmi badan Faadumo ku soco wuxuu igu yidhi haddaad bildinkaa degan tahay lambarkaad ii sheegtay maqaaxida kaa hooseysaan joogaayo balakoonka soo istaag balakoonkii baan istaagay balakoonka haddaan istaaga waa ina yaroo dhalinyaro ah oo qurux badan gadhis ku jooga leh timo yaroo saasa dhagdhag lebis yaroo qurux badan ku lebisan inanka codkiisaa markii u horeysayba ijiitee araggiisii markaan arkayna xaadun baaba iska istaag waa araggiisii keliya iima dhawo weli highway baa noo dhexeeya waan ku arkaa buu igu yidhi haddaan soo koraya waan ku imanaya waaya wuu soo galay guriga hablaan la deganahay oo laba maqsin weeyaan hablaan wada deganahay guriga inankii waxaad moodaaba dad weligaya isnaqaana inaan nahay waxaad moodaa in aqoon hore naga dhexaysay Maryan Ruun madaxa korkiisa waxaad moodaa in aqoon hore naga dhexaysay inankii waan isla salaanay markaa warqad buu ii sidaa wadankii buu ka yimi fariin buu ii sidaa markaasuu igu yidhi fariin baan kuu sidaa maad iisoo dhaadhac intaan anigu soo korayay markaasaan ku uri waan yar xanuunsanayo madaxa yar xanuunayo intaan dhaadhacayaaba ka yar wahsaday markaasuu yidhi ma madaxaa ku xanuunaya haddaan quraan kugu akriyo ka waran markaasaan ku iri quraan haddaan kugu akriyo ka war markaasaan ku iri wallahi waan iska jeclaan haddaad quraan igu akriyayso weligee ma laydin quraan saaray jacaylkiin ma idin quraan saaray warda xaashi huunna hadhow marka programku dhammaado aan idin furi doono waxa dhacda wuxuu yidhi haddaan qur-aanku saaro ma madaxa ku xanuunaya haddaan qur-aanku saaro ka waran markaasaan ku uri wallahi waan jeclaan lahaa haddaad qur-aan saarto maxaa ka wanaagsan ina mari buu yidhi yo qol hablo ku jireen oo sariir yara ii taalo ayaan sariirtiisaa u jiibsaday kursi yaro halkan yaalo kusoo fadhiistay qur-aan buu igu akhriyay inaan aad qur-aanka ugu cod macaan ayuu ahaa first one codkiisii baa i qanciyey halowdiisii second araggiisii baa i qanciyey markuu ii yimi furfurnaantiisii iyo bashaashnimadiisii saana iila hadlaya ay qancisay lambarkii afraad codkiisii qur-aanka uu ku akhrinayay ayaa i qanciyey markaa qur-aanka miyuu kaa fogaa mise dhegtuu kaaga akhriyay may dhegtaygaga ma akhrinayna sariirtan saa u yar jiifay isagana kursi buu kusoo fadhiyey caadi buu soo fadhiyey deetana codkiisii qur-aankii aayadihii qur-aanka habaad ka heshay codkiisii
quraanka markuu akhrinayo madaxa ilaa lugaha waxbaasaa ii dhex yaacaya maaqaan waxay tahay waad dubaaxinaysaa way dhaaftay haya quraankii adkaat buu igu dhameeyey waan soo fadhiistay waxaan ku idhi codkaaga aad buu codkaagu macaaya waxaa ka sii qurux badan araggaaga waxaa ka sii wanaagsan hadalkaaga degan iyo kaftankaaga waxa intaaba isku fiiqsatay qiraa'ada saad u akhriyayso meel la tuuraba mari markaasuu isna wuxuu leeyahay markaan aniguba saa kuma maqlay codkaaga lambarko wuxuu yidhi horta inanba kii waddankii aan wada joogi jirnay ee i damci jiray ayaa fariin iigu soo dhiibay warqad jacay wuxuu yidhi inankii ayaa ii kaa soo sharaxay wuxuu yidhi waa gabadh degan waa gabadh akhlaaq badan waa gabadh qurux badan waa gabadh sidana inanku markuu ii kaa sharaxayay ayaan kaa helay taleefonka markaad iga qabatay codkaaga uu i dhex orday marka aan balakoonka kaa arkayna waaban kugu qancay haya inankan fariinta kasoo qaadayay buu yidhi waan u sheego waxaan ku ihi gabadha aad sidan iigu ammaanayso haddaan ku dhammaado ka warrano wuxuu igu yidhi way kaa suurtowdaay gabadha ka fogo haya maxaan kaa fogaanba dareenba xaggaaga ii soo jiidanaya waxbaa igu jira ii kaa soo jiidanaya haya inankii halkii baan jaanta iyo jiibta iskula helnay haya fariintii uu ii siday isagoo arkaya ayaan dagsi beelka ku riday maan kala furin ma akrin kii uu fariinta ka soo qaaday fariintii ood qaadad smb gurida kii kuu keenay ood jeclaatay haa adduunyada taas dumarku marka lagu leeyahay habluhu maxaa nin waashay alla maxay nin waareen alla dumarku maxay nin waareen maxaa nin ku maqan haye jacaylkoo ilowde waxay raacday cod iyo keliyaatay raacda lagugu dhufay namari halkii qashinka ma ku riday fariintii uu ii waday dagsi beelka ma ku riday inankii baanu isla duulnay dhibaato waxay ka taagan tahay waxaa jira inan halkan oo isagu jeceloo lacagta sikin ii siiya inankan aan jeclaaday codkiisa ku jeclaaday araggiisa hadalkii markii u horreeyay qur-aanku igu akhriyay hal mar jacaylkaasoo is wada socdaa ay ii galeen waxba ma haysto waa inan yaroon waxba haysan dharkaa ugu xidhan waxba ugama hooseeyaan shaqo markaa fiican ma haysto ha qurux badnaado ha ahaado qof dabeecad wanaagsan ha ahaado qof furfuran ha ahaado hay soo jiito laakiin waxba ma haysto waa xayraan waa xayraan kan kale ku jecelna waa maalqabeen kan waddanka ila jooga odaygii xaaji lacag ee waddanka ila joogay waa maalqabeen haye maaha hablow kii gabadhaas fariinta laga soo hablow qaadayay gabadhaasi nin wiilkii u soo diray waraaqda way khiyaantay kii kalena way khiyaantay gabadhaas midinla saxsanta midin isagoo way khaldan tahay soo qora hadha wixii ka dhaca ama wixii ku dhaca sheekada xaggeeda dambe idinka idin taallaa ku soco waxaa dhacday inankii inaan idhi lacag ha ka warwari anigaa kuu nool dhabarkayga ayaad ku daaqaysaa keliya ta qalbigaygana qaado kaagana isii haye buu igu yiri xaaji lacag baan la hadlaa waxaan ku idhahdaa intaasoo lacagaan u baahanahay uu ii soo dira waxaan siiyaa inankii cod wanaag cod macaan waxaan ku idhaahdaa waxaa jira markaa taleefanada waagii kaarhka la xoqan jiray bay ahayd halow doon ku hadli jiray waxaan la hadlaa xaaji lacag waxaan ku idhahdaa intaasoo kaadhaan u baahanahay uu ii soo diraa waxaan u diraa kiyaan anigu jeclaa inanta ii soo qoraysa sheekada ka aamus maan loo sheegin in qofkaas aakhira loo diro talo mar dambe walaal ha soo qorin haddii kale iska bax haddaad dhegeysan karin walaalo sheekada ka aamus maxay tihi maxaa meesha u safristaani iska bax walaal macaanay ku soco ina axmed cabde ku soco ruulkaanay la haysane walaa intaan lagu balogarayn iska bax walaal adoo mahadsan ku soco baadmo noomaba baxdo waxaa dhacday inankii inaan odaygii xaaji lacag kaadharka kasoo qaado oon siiyo inankii aan jeclaa waxaa dhacday xaaji lacag inaan lacagta kasoo qaado oon siiyo inankii aan jeclaa xaaji lacag maalin dhaaf buu igu soo booqdaa maalinta uu xaaji lacag ii imanaya maahae maalinta kale inankii aan jeclaabaa ii imanaya
markaasaan waxaan u sameeyaa ilaa xaaji lacag baan lacag kasoo qaado lacag la-aan ima hayse adduun saa u kala shiilan macmacaano hilbo sharaab miis baan usoo buuxiyaa inankaan jeclaha maalinta ku xigta ayaa ii imanaya xaaji lacag kursigan halkaa u dhigaa su-aashu ii weydiiyo un baan uga jawaabaa markaasuu markuu cabaar joogo buu igu yidhahdaa malaa lacagtii baa kaa dhamaatay hoo lacagtanoo hablaha waxaad inoogu dartaa biyo iyo sharaab inaa lilaahi wa inaa kii xayraanka ahaa maalinta ku imanaya miiskaad buuxisaa xaaji lacagtiisa miiska lagu buuxiyaa xaaji lacag maalinta ku imanaya ninkii lacagta ku siiyeyna guriga waxa ma yaalaan miis kaliyaad u dhigtaa markaas ku dhahdaa marka su-aala ka jawaabi bal hablaha lacag inoogu dhib malaha lacagta kaa dhamaatay gafkii adduunka wadiga biyo iyo waxba aan inoo keenin malaa lacagta baa kaa dhamaatay oo lacagtan oo hablaha biyo iyo sharaab inoogu dir hablihii baan biyihii iyo sharaabka u diray biyaha iyo sharaabka oo jeebkiisa kasoo saaro ayuu guriga ka cabaa markaasaan waxaan ku dhahdaa kaadh baan u baahanahay intaasa markaasuu igu dhahaa waaye wuxuu sugayaa kaadhkii inaan isaga kula hadlo markaan la hadli waayo hadhow isoo wacaa markaasuu igu yidhahda maxaad iila soo hadli waysan ku dhahdaa kaadh ma haysto taleefonku iga madhaya markaasuu awal maanta miyaana kaadh kuusoo diro war waxaad iisoo dirtay hay xisaabina kaadh ma hayaan ku idhi markaasuu waaye kaadhkan waxaan siiyey kii aniga i jeclaa ayaan u diray hadduu doono igulama soo hadlayo oo iska mashquul badan yaho shaqoyo waxbuu raadsanayaayo kii anigu aan jeclaa inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun muddo haddaan inankii sidii nahay oo aan inankii sidii u jecelahay dabcan isaguba uu jecel yahay oo aanu sidii isku nahay oo aanu maalin israacno xaaji lacag intaan lacag ka soo qaado aan day u wada baxno anigaa bixinaya shaqo yar buu markaa meel ka helay dukaan yar buu shaqo ka helay oo aanu sidii isugu maranahay ayaan waddan afrikada kale ah process u tegi processkii markaan u tegey waxaan kala hadlaa markaa teleefonkii kaadhkii la xoqanayay markasta ma helayo lacag yar baa la isoo diraa waxaan tagaa meeshii markaa waagii hore hotmailku uu jiray taleefonka lagama isticmaali jirin waa tii la tegi jiray meel lacag la bixiyo oo intaa iisoo daa 15 daqiiqo iisoo daa 30 daqiiqo iisoo daa deedna kombyuutarka qofka lagala hadli jiray inta online loo noqdo waxaan sii diyaariyaa habeenkii 4 page oo waraaqa ah ayaan sii qoraa geeraara kusii qor heesa kusii qor indho ooyaya loof xinjiro ka daayaan waxaasaan habeenkii soo waraa 4 warqadood baan buuxiyaa 9 subaxnimaa la furayaa 8 iyo barkan sii hortagaa anoo hortaagan ay inamada meesha fura markaasaan galaa markaasaan 4 bogos oo waxaan u dhigaa jacayl saa u daaya kuwa isagu iisoo dhigayna waan soo akhristaa lacagta la isoo diro xaaji lacag kasoo yaro fogaade lacagta la isoo diro waxaan ku isticmaalaa hotmailkaasaan ku galaa haddaad lacag lahaan lahayd gabadha sidan gabadhan raadinayo kalena odaygaas wax kasta waa u huri lahayd soo maha waan u huri lahaa way soo socotaa haddaan sidii ahay oon muddo sidii nahay oon sidii isu jecelnahay oo waraaqihii iisoo diro oo waraaqihii u diro oo fiisahan iyo waxaan reerku ii wadaan anigu ma rabo waxaan ku ducaystaa ilaahu fiisaha soo saare ilaahu negative aan qaataa ilaahu aanan bixin ilaa salaadan tukadaba waxaan ku ducaystaa ilaahu fiisaha kansar inaa lilaahi wa inaa qof dibadda ku ducaystaan arki jirna adu dibaddii waa diidantay imana tagtid gabadha ka ducaysanaysaa tii ilaahu fiisaha kansar ilaahu soo sahlin ilaahu aanu soo bixin ayaan leeyahay inaa lilaahi maalintii dambaan u tegey waxaan helay jaanis yar baan helayo markaasaan waraaqa xereeyey waxaan sir haddeero kale balan kuuma soo baxayso waan tegey waddankii uu joogay baan ugu tegey waddankii uu joogay markaan ugu tegey ayaanu israacnay galabtii markaanu israacnay waxaanu tagnay qaybtii hotmailka laga geli jiray internetka ayaan tagnay hal kursi baan ku wada fadhiisanay hal kombyuutar baan wada isticmaalay kiisii buu furtay bogos buu furay waxa u saaran gabadh xidhan dharka hindiya dhaqanka xidhan sawirkeeda u saaran
waxay leedahay oo hebelow fariintaadii waan arkay waan kaa ajiibay adiguna ila soo hadal loo waxbay usoo dirdiraysaa waxay igu noqotay waxaan indhahaaga markuu akhriyay markiiba uu dhaafiyey adkaatay jacaylkaagii oo naag kale isagu arji usii qoranayaa ha isagaa u qoray iyana way kasoo jawaabaysa kululaatay baga maca sonkor soo qora iyadaa ka tagtay qofkii jeclaa illee qof kastoo qof jecel ka taga saasaa u dambaysa haye soo celi baan ku idhi soo celi warqadii soo celi markaasu wuxuu leeyahay may ahayn marba mid buu furaa matanay ahayd markaasaan keen mooskii baan ka qaaday waan wadwaday aniga waxaan geeyey meeshii baan furay warqadii baan arkay si fiican baan u akhriyey waan gartay in gabadhan isagoo u qoray markii hore codsiga ay uga soo jawaabtay qoraalkeedii waxaan ka dhex fahmay inuu jacayl u dirsaday oo ka dalbaday sheeko inay u soo jawaabtay waxay igu noqotay waxaan qaadan waaye waxay igu noqotay wax madaxayga ka weyn xaaladda markaa aan dareemayo lugahayga waxay noqdeen culays aanan saa usoo qaadi karin علشان قفكي أن كده عايسني إلى هو في سهن إيجا كنسر يعني قفكي إيجا كتجيله أو قبل كلا أرتيو قرناي ونكي مواد قبسن با ما حل كرابة مركع حل ما وحلا قبصدا حل ما قفل قبوقا حل ما قفل جيجلا مركع أود هيسو أودي بيجا دمات هاي إيوه شكلها ماشي وو حنكون نقضي عاج waan soo baxay waan soo dhaqaaqay anigoo aamusanba saa aayar soo agmaray waan soo baxay gacmuhu saasay isku kay dul saaran yihiin laafteeda saa gacmahaygu isdhaaf isku dul saaran yihiin saasaan u socdaa horteedun baan eegaya dhinacayga ma eego hareerahayga ma eego gaadhi iskama eego way daba socdaa markaa way daba ordaya waxay leeyahay shaydaanka iska naar qaali shaydaanka iska naar waxaan waa caadi anaa kuu sheegaya anaa kuu sharaxaya ma raba inaan la hadlo marka gaadhi soo socdo isagaa iga istaajinaya gaadhi xitaa inuu soo socdo ma arko marka gaadhi gacmihii intaan saa isku dul saartay halkaa laabta labadii gacmood saa isku dul saartay ayaan saa u socdaa hareerahayga eegi maayo horteyda xitaa eegi maayo dhulkaasun baan eegayaa dib eegi maayo dhagaha culays baa iga saaran guuxu gaadhi maqli maayo markaas wuxuu leeyahay wuu idaba ordayaa markaa wuxuu leeyahay istaji shaydaanka iska naar anaa kuu sharaxaya waxaa ma maqlo gaadhigu markuu soo socdo isagaa iga qabanaya saa ii istaajinay intuu gaadhigu idhaafayo haddaanu isagu ila joogi lahayn gaadhigu wuu jeeri lahaa aanu isagu ila socon lahayn saana socday baan gurigii tegey boorsada yareed baan xidhanahay baan sitaa gurigii markaan tegey furihii ayaan albaabka inaan boorsada kala soo baxo furaha ku furto soo ma ahayn albaabkii baan hortaaganahay gacmaha isagoo albaabku inuu isfurayo boorsadii baa aayar garabkayga kusoo rugay albaabkii buu furay qolkii baan galay sariirtii baan saa u fadhiistay saasaan u qasanahay markaa sida qof gaadhi soo raacay oo meelo meermeer buuro saa u soo maray oo kale si uu qasan yahay oo kale ayaan qasanahay indhaha waxba kama arkayo madaxa culays baa iga saaran lugahaasi dhegaha guux baa igaga furan gebigeyga waxaan ahay qof bedela halkaa markay marayso uu ileeyahay maxaa ku helay maxaa kugu dhacay anaa kuu sheegaya ayaa waxay halkaa iiga muuqatay shoolad markaa shoolad yaroo liifad ama dumaalad saa loo gelin jiray ee liifadii finuska laga taagi jiray ama dumaalad hadba saad u garanaysaa shoolad yaroo saa liifadahaas lagu shidi jiray baa jirtay oo noo taalay markaan cuntada ku karsanaynay shoolad yareed baan soo qaaday leetarkii baan ku shiday leetarkii markaan ku shiday ayaa waxaan soo qaaday teleefonkiisii waan dhex dhigay teleefonkiisi intaana dhex dhigin halkan waxaa yaalay alban aniga isaga aan sawiro kusoo galnay albankii baan waraaqo kasoo saaray shooladii baan duldhigay dabkii markuu hul yiri ayaan teleefonkiisii qaado dhex dhigay teleefonkii isagu lahaa ha waa kow markaa isaga markaa teleefonkani waxna kama fikiray wuxuu isleeyahay guriga armays ku gutaa shooladii buu la orday waxana waa shoolad waa gaas anitay may qarxi kartaa shooladii buu la orday banaanku geeyey wixiiba baktay mawaalan tahay guriga ha isku gubin saa tahay caqligaaga ma joogo miya waxaas uu leeyahay aan soo noqdeen isri sariirtii fadhiisaba waxaan mataga dhiig baad matagtaa ha oo intuu ka yimid dhiiggu markaa
meel ku yimi bal aad ka sheeg wuxuu ka imaanayaa markii may iPhone ma ahayn telefoonada yar halowdii buu ahaa waaga iPhone ba ma jirin iyo teleefoonadan waaweyn laabsharaha computer baanu ka nimi internetka hotmailka meeshii loo tigi jiray lacagta la bixin jiray maaha waqti hadeer iyo waqtigan ciyaalka maaha waqtigii dadka waaweyn bay ahayd dhiigu wuxuu ka yimi markaan joogay meeshii processka aan ku sugay lacagta la isoo diro soonigan hotmailka ku geli jiray cunto maan cuni jirin naftayda kamaan fikri jirin dadka su'aal baan rabaa inaan weydiiyo gabadhaas ma gaas tiri baa hayay mise jacayl baa hayay anu waxaan umaynaya gaas tiri baa jacaylkii baa keenay dee anigu waxaan umalaynayaa gaas tiri baa hayay ama dacar baa haysay maxaa umalanaysaa adigu baa dareemay jacaylkaa lalabada kiciyey gaas tiri baa hayay waa qosolka jacayl baa hayay waa oohinta gaas tiri baa hayay waa qosolka jacayl baa hayay waa oohinta ku soco jacaylka ii taabta anigu xitaa oohintaa taabtay jacayl dhiig looman tagay dabeetana waxaa dhacday halkii markay ahayd ayuu gurigii hagaajiyey wixii ka hagaajiyey masaxay sariirtii isaaray busto yar saa iisoo dul saaray markaa gebigeyguba saasaan u gariiraya igama tegi karaya wuxuu isleeyahay armi istishaa armi isgubtaa armi maxay samaysaa saanu guriga u dhex socdaa maxaad bilaayad maaseejka u furtay dhakhtar buu igeeyey dhakhtarkii markuu igeeyey dhakhtarkii wuxuu yidhi waxa weeyaan caloosheeda nabar baa ku yaala waa in dhakhtarka la dhigo sariirta iyo habeenkaa dhakhtarka iyo dawadaya wuxuu waa $100 iska daa isagoo $10 ma haysto iska bax baan ku uriya waxaan la hadlay xaaji lacag xaaji lacag baan la hadlay waxaan ku uri dhakhtarkaasaan aala lacagna ma haysto isagoo orday lacagtii buu iiga bixiyey waxaan ku helay dawooyinka buu ii iibiyey dhakhtarka markaa waa lay dhigay dhowr casho xaaji lacag markuu iga tago kii aan jeclaa baan u yeedhanaya inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun xaaji lacag keliya waxaan u yeedhayaa xilligaan lacag u baahad inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun ilaah baan kugu dhaariyay bal waxaad gelaysa gefka weyn ay gelaysa daawo yaa kii xayraanka ah markuu dhakhtarka geeyo lacag ma haysto way ereysaa kii xaaji lacag buu yeedhaysaa lacagta dhakhtarka ka bixinaa ku jiifto waanay khiyaamaynaysaa agow dumarow rag iyo dumarkaa khiyaamo badan khiyaamo kulul weliba kulul ku soco marka uu iiga tago xaaji lacag waxaan u yeedhayaa kii aan jeclaa intaa uu ag fadhiyo oo ku qanacsanahay laydh qabowban dareemaya intaa uu ag fadhiyo halka haddaan ay halkaa marayso oo muddo ku jiray oo iga soo kaxeeyey xitaa maalin buu iigu yimi xaaji lacag iigu yimi inankan oo ag jooga markaasaan isbaran ku uri walaalkay weeye inankan qaraabana dumaashinima isku barteen kan yari uu og yahay xaaji lacag inaan lacagta kasoo qaado oo xaaji lacag rabo kanaan jeclahay laakiin xaaji lacag waxba ma oga inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun adkaati wallah haye laguu dhufay ku aragta halkaa markay marayso oo aan inankii sidii habeenii maalin garab taagan yahay isagu lacagun baanu hayn laakiin jacaylna uu ii hayaa waqtigiisoo dhanna wuxuu rabaa inuu ii horo markaa lagugu dhufayey imaan la-aantan ku haysaa markaa maxay tahay waxaan hayaa jacayl bilaa lacaga markaa lacagtuna waa lama huraan oo waa lagama maarmaan jacaylkana naftaa u baahan waa baleen a iyo baleen b baleen a waa jacaylkayga marna kama maarmo baleen b na wixii emergency waa xaaji lacag ara ay haysa ku soco xaaji lacag laakiin doqon buha isaga waxaan fahmayn ara ay haysa faadima ku soco sheekada kaga dhaqso dabeedna waxaa dhacday halkii markaan muddo joogay ayaa broseskii waraaqay iga soo dhaceen waan soo tegey broseskii baan imi wadankii baan kasoo tegey broseskii baan imi sidii baan faylka ugu galaa aroortii hotmailkii waraaqihiina habeenkii u qora jacaylkii waxaan kasoo qaatay hotmailkiisa basswordkiisi iyo ciwaankiisi waan furaa markaasaan ku cusubahay hotmailka isaga awoodiisaan u bartay qaybtan onlineka
iyo qaybtan inboxka ayaa laba ii kala ah waxaan furaa markaan saa usoo galo waxaan furaa qaybta inboxka ma habeenkii oo dhan waxaan dul fadhiyaa qaybtii maalintii oo dhan waxaan dul fadhiyaa qaybta inboxka ilaa inta meesha laga xidhayo lacagta way igu socotaa waxaan sugayaa gabadhii qoraalka usoo qortay bar haddayna warqad soo qorto so gabadhii warqad ba haysoo qorin buu ku yiri hot meelka markaan soo galo chatkaasaan kaala hadlay anna waxaan sugaa inboxkaasaan maalintii dul fadhiyaa waxaan sugayaa intay warqad soo dirayso inboxkaasaan arkayo warqadda akhrinayo sidii markay muddo ahayd oy lacagtii iga dhamaatay oy xaaladahayga xaalada jeexjeexeen ayaan ku idhi waxaad samaysaa intaa kadib ma joogi karayo kaamana ahaan karayo brocesskiina weli ma soo bixin markastana ilaahay waxaan baryaa inuu ilaahay broceska uu ka dhigo negative si aan adiga kuula noolaado ii kaalay ii imow aan isguursano $100 lay soo diray halkan aan ku wada cuno dhagahanay qabo ها هي عجايب شيخو هي markaasuu wuxuu igu yiri anigu waxba maanta ma haysto waxba kuguma dhaamo guurku marka hore uu sina dhuuban yahay marka dambena uu sina ballaaran yahay sidaa yare fudud ma aha keliya ta guurku hadda wax badan baynu u baahanaynaa noloshu intan way ka ballaaranaysaa reerkiina laynkuu wada haddii aan anigu ka guursado laynkaas waa kaa kansalay anigu meel kuma geyn karay waad ogtahay adigaaba wax isiiyo ibiila laynkaagu ha kuu socdo aniguna halkan aan kuu joogaya marka laynkaagaas kuu soo baxeed meel hagaagsan tagto ayaan isguursan doonaa inankaas ma dhabbay ka ahayd ma jacayl baa wixiisu mise xaasidnimay ka ahayd bal idinku soo sheega maxaa ku yidhi hadha waan isguursanayna waa cadaa kaas najis buu ah been wey beenaala soo qora waa beenaale wey jacayl maahay soo wada qoreen jacayl maaha waa beentiisa oo qosolka waa runtiisa oo oohinta waa beentiisa oo qosolka waa runtiisa oo oohinta ku soco waxaan ka dalbanayaa anigu maaha meher toos uu xaafadda la hadlayo waa meherkii daaqada isaguna wuxuu leeyahay maya maaha si fiican uma idin fahmin isaguna wuxuu leeyahay maya wax badan baa soo baxaya noloshu intaa way ka ballaaran tahay uur baa imaan kara laynkaagana kaa istaagi kara aniga hadda qarash mahayo waxba kuguma dhaamo markaad meel hagaagsan tagto ama anigu aan shaqo fiican helo ayaan isguursanayna oo aduu meherxad baad rabtaa haa ma rabo inaan xaafadeeda u sheego wuxuu xaafadii kula hadlana ma hayo oo show iimaankaad beeshayba adigaaba wax meherxad baad rabtaaba waxaan rabaa inuu meesha iskaga yimaado halkan igula noolaado ila joogo aanu jacaylkiisa waan u waashay habeen ma seexdo cunto ma cuno hotmailkaasun baan taagana internetkaasaan fiil ugu jira ilaa inta laga xidhayo acuudu billaahi min ashaytaan rajiim markaa ugu soo celi boolka usoo tuuro ma isagaa saxsan oo wixiisu ma jacayl dhaba isagaa saxsan ama jacayl dhaba ha ka haado ama dhaba ha ka haato ama yaani ka hani kale hadduu ilaahay wuxuu diiday oo uu ku yidhi xaaraanka uguma imaanaya isagaa saxsan waxay doonta hadhow ka haatay anigu markaa waxaan u arkaa inuu ilu goynayo waxaan u arkaa inaanu irabin waxaan u arkaa inuu laynkan iyo waxanba isagu ka fikirayo anigu habeenay maalaan ku ducaysanayo inuu ilaahay kansalo markaasaan waxaan leeyahay oo ima rabtid oo ima doonaysid oo waxaad rabtaa laynka waxaad leedahay iska tag oobaad sii fogeynaysaa aniguna waxaan ku leeyahay ii kaale aan laaftaada gale kaafiyo kala dheeri baynuba nahay waxaan tagaa hotmailkii baan tagaayo waxaan u qoraa intano waraaqood oo calaacala waan isdilaya laamigaan isku dhigaya fooqaan iska tuuraya waxaad ogaan doontaa markaan jacaylkaaga isku dilo waxaad ogaan doontaa markaan dhinto bilaayaan saa ugu qora markaan kasoo tago intaan guriga soo gaadhin ayaan waxaan ka wacaa taleefonka branchka gidaarka ku dhegan baan ka wacaa oon idhaahdaa khalaas ima rabtid ima jecelid dhoofaad rabtaa haddaad rabto waad ii iman lahayd $100 haystaad ila cuni lahayd hadalka ma sugo haddana waan ku dhigay ila lacag ma haysto marka adiga su'aal baan ku weydiiyey mise jir baa jirta adigu mise jir baa tahay markaa 17 tamaandhan ha isku bislaatay marka aada weyn cuncun madaxa iyo meel kastaba
halkiiba waxay ahayd sidii markay ahayd ayaa waxa soo baxay khadkii oo positive ah maalintii adduunka iigu xumay iigu naxdinta badnayd iigu muraara dilaaca badnayd waa maalintii deebiil fiisahaagii uu soo baxay waqtigaana soo baxay yeah waa maalintii iigu naxdinta badnayd maalintii deebiil fiisahaagii baa soo baxay waqtigaana soo baxay yeah isagii markaan hotmailka tagaba waxaan u dirayaa 4 page oo cay ah iyo 4 page oo calaacala iyo 4 page oo jacayl ka hadlay waa cool annagoo halkaa aan taaganahay oo leeyahay beenaalaa tahay ima jeclid ima rabtid waxaad leedahay tag waad i fogeynaysaa waad i baacsanaysaa inantii de gareyska xidhnayd baad rabtaa haya inantii gareyska xidhnayd baad rabtaa aniga ima rabtid de ana leeyahay oon halkaa uga tirinayo ayaa waxaa layidhi positive baan tahay fiisahaagii baa soo baxay tigirkaagiina wakaa waqtigaasaa soo baxaysa haya waa maalintii liigu adkayd isagii baan la hadlay waan u sheegay waxaan ku idhi ma ii imanaysaa wuxuu igu yidhi haddeeraan meel yar shaqo ka helay oo aan nafta ku maaweeliyo hadda haddaan halkaa yar ka soo baxo shaqadaa yar way iga burburaysaa ayaa anigu waan kuu imaada markaan imaanshaha aan ugu tegaya maaha imaansho caadi ah waxaan rabaa inuu soo mehersado isaguna wuxuu ka cararayaa meherka wuxuu leeyahay nin isjecelnahay jacaylkeenu dab yahay iska tag ana aan shaqaysto aan si qurux badan kuu soo doono udmurudeedii ahaati aniguna meelo badan baan ka fikiraya jacaylkayga waad waayeysaa lambar 1 lambar 2 naagtii maalintii message kuu soo qoraysay baa iigu qafilan waxyaabo badan da'yaraana badan oo i haysa waxyaabo badan baa isku dhufanaya markay halkaas marayso ayaan inankii idhi waayahay jacaylkaagina cross baan saaray xidhiidhkeeniina intaa walla waxay iga tahay inaana dib u sii wadayn halkaasaan waaban tegayaa adiguna maca salaama maadaamaad i diidayba inaan kugu imaadno amaan anigu adaad igu timaado amaan anigu kugu imaado waan dhoofay wadankii aan u socday baan ka degay 2 cashan jidka kusii jiray kadib markaan saa u tegay ayaan idhi kaadha siiya way kaadha siiya lambarkiisa waan xifdisanahay